بقول كيف اللحدن أما بقول كيف تضباطن حتى ردت كار way u qaadi karaan percentage ka hadda aan sheegay dadkeena waliba hal abuur kale inta baxa meel taga ama businessyada ama howlaha kala fuliya uma badnaba dadka wax soo bartay macnaha kuma xirna aniga ahaantay ma qaba inay hal abuurku sidaba waxay dhahaan entrepreneurship-ka ama hal abuurnimadu dadka qaar waxa la isku haystaa araayada kala duwan waxay isku haystaan waa la dhashaa waa la bartaa iyo labadoo la isku daray midna wuu ku dhashay wuuna bartay oo macnaha barasho ku kabay dad qaar waxay yiraahdeen waa lagu dhashay hal abuurka qofkan waa haybad ilaahay siiyay dadna waxa waaye waxay dhahaan waa la bartaa kaliya qof inta iskuul tago barta markuu barto wuxuu bartay tusaalahan fiildiye waxaa jira oo waxbarashada qaar waxaa jira markaa baratid kuu saamaxaya inaad kaliga iska wax furan kartid hadda adduunyada hadda aad u jeedid waa wada technology kale hadda qofka IT barto kale IT markaa soo baratid tech waxa soo galaysa adduunyadan technology-da soo galaysa kaliga waxa laga yaabaa inaad samaysatid wax ku gaar ah macnaha waa la bartay qofkii awal inuu san aqoon dhici karto shaqooyinka marka ayagaaba u kala baxa waxbarashada naftirkeeda waxay u kala baxdaa in tusaale cilmi iyo adab aamin waxaan ka wadaa science iyo arts u kala baxaan artska waa waxaan iska theory-ga iyo management-ga iyo business-ka iyo waxyaabahan la xiriira ah laakiin maadooyinka science-ga sida engineer-nimada caafimaadka waxyaabahaas kale bari qofku markuu soo shaqeysto still kuma qasbanaanayo haddii aysan asaga iskiis uusan go'aanka u qaadan inuu bari warqad hadana qaata raadiyo qofka engineer-ka hadduu architect yahay hadduu wax design gareeyo waxa laga yaabaa inuu inta baxo bari kursi iyo miis hadduu meel dhigto waa loo imaanaa ninkaas waxaa loogu imaan asaal la soo raadsanaa waxa leeyahay kaalay internal handles internal laakiin qofkan kale artska bartay waxa dhacaysa bari oo maamulka businesska waxyaabahan kala soo barta iyo relationship-ka diblomaasiyadda iyo adiga administration waxyaabaha iska soo barta waxa dhacaysa bari inuu shahaado qaato qof asaagiis ama company kale oo aan ku maamulo laakiin halka engineer-ka ama caafimaadka ama qofka soo bartay ama IT-ga bartay uu madax banaanaan karo ama qofka beeraha barta uu inta baxo beer kaligiis asaasan karo uu furan karo ayadaaba cilmiga naftigiisaba uu kala baxay laakiin still waxa arkaysa dad anaga naga mid ah oo wax soo bartay maadooyinkii ay iskood kaligood u shaqaysan lahaayeen si madax bannaan u shaqaysan lahaayeen laakiin haddana weli dad u shaqeeya ama cisbitaal tagaaya warqad geysanaya ama company kale wax dhisa construction ah dhahaya iga saacid laakiin inay u baahan yihiin khibradna waa dhici kartaa marka way waxbarashada kuma xirna su'aashaadii markaan u soo noqdo oo waxbarashada waxa waaye kaliya laakiin way caawisaa qofka haddii uu awal lahaa dabeecada kamida ama astaamo kamida ama haybad kamida ilaahay siiya awal hal abuurnimada waxbarashadu indhaha u sii kala furaysaa wayna xog badan iyo wax badan ay siinaysaa waa maasan tahay mar labaad runtii dhalinyarada markii la wajaho loo wajaho as in dhalinyarada hadda soo baxaysa soo kobcaysa waliba youth age ay leeyihiin oo la og yahay dadna waa ka baxan dhalinyarada cuslaatay noqdaan oo hal abuurka markaas way sameeyaan dadna waxa waaye dhalinyaro markii la qeexayo waxa la dhahaa from 15 ilaa 35 inta badan lagu qeexaa waxaan horta u kala saarayaa marka koowaad aniga ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyarada qaar kuwa skill leh oo wax bartay iyo kuwa aan wax baran bulshadeena markaan u soo noqdo ka dhalinyaro boqolkiiba qiyaastii ilaa 60 markii la eego kuwa aan wax baran ayaa marmarka qaar waxa ay ka hormaraan kuwa wax bartay markii loo imaado oo laga hadlayo fursad abuurka fursad abuurku sideedaba wuxuu ku yimaadaa in qofka dhalinyarada ah dhalinyarada markaan leenahay waxaan isku qabanaynaa lab iyo dhadig rag iyo dumarba wuxuu ka hor imaadaa maskaxda qofka oo fakarta isku daydana inay la timaado wax ka duwan waxa suuqa yaala oo ganacsiga oo howlo kala ah ama abuurid shirkad cusub ama wax cusub qofka markuu wax abuurayana waxa dhacda hadduusan lahayn goal ama hadaf cad iyo meel uu hiigsanayo ama uusan haysanna taageero garab ah uusan haysan taageerada ka hadlaya waxa waaye marka abuuraysid waxa loo baahan yahay inaad haysatid capital startup-ki wixii aad ku bilaabi lahayd hal abuurkii hadduu taa haysan waxaa dhacda inay caqabad ku noqoto abuurkiisii
midda labaad waxa waaye qofka dhalinyarada ah ee raba inuu wax abuuro waxa looga baahan yahay sida dhacdaa inuu ka warhaayo suuqa aan ka wada waxa waaye environmentiga deegaanka uu ku nool yahay suuqa marka ka warhayna aad leedahay waxa waaye inaad ka warhaysaa caqabadaha jira waxa socda waxaan socon waxa suuqa yaalla waxa ka maqan iyo fursadaha la isdhihi karo suuq waxbay ku soo kordhin karaan oo ka maqan oo dadku laakiin ka indhasaaban yihiin aysan ogeyn qofku hadduu intaa og yahay networkna uu sameeyo network waxaan ka wadaa uu leeyahay connections fiican oo hadday tahay leanna waa iska soo duulaa cirkan ka soo dhacaa suuqa iska soo dhexgelaa ma shaqaynayso waxaa lagaa rabaa inuu qofku og yahay meesha u socdo waa inuu asxaab ku leeyahay businesska waa inuu isku xiri karaa dhowr meel oo uu dhihi karaa alelehe dad badanaan ka aqaanaa aan xogta ka soo ururin karaa after gathering inuu markuu soo ururiyo xogtii waa inuu dhihi karaa meeshaan waa laga gaabiyey meeshaan fursad fiicana ka jirta waa inaan meesha ku dhaqaaqaa taa waa midda kale horta looba baahan yahayba inaan annaga horta intaanan hal abuur ku dhaqaaqin dhallinyaradeenna adduunyadoo dhanna way haysataa waddamada kaleeto maraan soo akrinayay statisticska iyo baaritaanadii laga sameeyey dhallinyarada sideedaba marmar qaar waxaa dhacday inaysan ku baraarugsaneen awoodda ay leeyihiin iyo hal abuurnimo ay soo saari karaan iyaga oo ay yihiin just dad u xaniban dadkii ka waaweynaa wixii ay qabteen qaladka waa dhici kartaa inay ku leeyihiin dadka waaweyn oo naftirkooda dhallinyarada fursad siinin oo doonaya keliya inay ku shaqaystaan dhallinyarada hadduu adeer yahay hadduu abti yahay hadduu dad kale yahay doonaya dhallinyaradii inuu businesskiisii uun ku shaqeeyo shalay dukaanku soo bilaaba gaarigu darar soo gaday shidaalkii uu shalay gadi jiray bas inuu wiilkii dhex fadhiya raba way jiraan inay caqabad ku noqdaan wiilasha doorkooda gabay dhalinyarada ah oo ayagu haday boos because fursadda marka qofka dhalinyarada ah la siiyo waxa kala bixaysa oo kala cadaanaysa qofkan inuu awood yahay qofka horta waxa la ogaanaa marka koowaad inuu qofka suuqa markuu soo galo karti hadduu leeyahay oo uu hadday business tahay hadday wax kala gedi tahay hadday dhiilal in la soo gala tahay haddii qofku intaas samayn karo wax ka hor istaagi karaa ma leh berri mar hadduu suuqi fahmo sida shaqadii loo qabto fahmo berri inuu iskii u istaago oo ka madax bannaanaado businesskii reerkiisii ama familkiisii ka madax bannaanaado oo mid gooni ah samaysto wuxuu diidaya ma leh laakiin fursaddii ma la siiyaa ayay su-aashu tahay saa ii weydiisa way qurxan tahay fursaddii sax lama siiyo sida ognahay dadkeennu intooda badan fursad lama siiyo waxay isku dayaan weliba qofkan in allaala intay hayn karaan inay hayaan lacagta ay siiyaanna markii dhowr sano kadib la gaaray in loo kordhiya laga yaabo markuu xoogaa damco qofku hami soo galaba dhallinyarada inta badan hamiyay leeyihin laakiin hamigoodu waddada dhexdeeda markuu sii marayo intii uusan waddadii gaarinba waxaa dhacda in hamiga uu ka dilbo because qofka hami markuu ka jiro waxaa la rabaa markaas looga faa'iidaysto dareenkiisa kacsan yahay qof waxaa arkaysaa fursaddii arkay hami leh ku dhahaya waxaan rabaa inaan qabto laakiin hadduu supportkii iyo taageeradii familkii ama ciddii uu shaqaynayay heli waaya marka iyada ah waxaa dhacda inuu niyajab ku imaato oo uu ka niyajabo oo yidhaahdo waxaan ma qaban kartid haddii uu niyajabana waxaa dhacaysa haddiyo kow haddana inuu refreshment soo qaato oo qofkii mar kaleeto fursaddana waxaa la yidhi taduqu bibaabika maratan macnaha hal maray fursad albaabkaaga soo gargaraacdaa mar labaad maanta dhan makuu soo gargaraacayso suuqaana wax soo aragtay tusaale wixii aad soo aragtay waxaa la rabaa haddii adiga aad qaadan weyso soomaali waxay ku mamahdaa daahana hortiis dafanaa jooga waa la dafayaa fursaddii inta soo aragtay haddaad dadkaagii u keentid ay ku yidhaahdaan war u kaadi bal kistaan ku siinaynaa u kaadi ay ku yidhahdaan waxaa dhacda in mid kale ama fursaddiiba ay suuqa ka baxdo ayaa dhici karta marka taageerada familka waa muhiim qofkan inuu kobco midii kale hadday aan rabay inaan ku darsado intaad su-aashaada kale u gudbina waxay tahay awareness in horta bulshada la baro waxa ay tahay hal abuur qofku inuu hal abuuran karo maaha qofkii wax bartayna weliba aniga waxaan aad u dhaleeceeyaa oo anigaba nafsadeeda ay ku jirtaba dadka wax soo barta isku tuhmaya inay shahaadooyinka haystaan markuu wax soo barto qofku maaha inuu wax u soo bartay inuu dad kale u shaqeeyo qofku markuu wax soo barto waxaa la rabaa warqaddii uu soo bartay inuu inta meel dhigto meelaha qaar uusan ay dhihin maxaa la dhihi jira kala job wax la dhahi jiro macnaha shaqadaba inaad ka bilowdidba in xafiis lagu fariisiyo taa iyo suud soo xiratid shaati cad aad soo xiratid shaqada inaad ka bilowdid inay saas ahayn shaqada markaad ka bilaabaysid ilaahayowba allaahumma allah ka dhigay dhulkaba in aad ka bilowdide
وإنها ترت ديار أوتها معها هنا كبلا بيسد معها وإنها ديار أوتها شقة قبل يسد لكن هذا ترى أن شقة هبل سوقا أو شقة متعلق أما لعقتها ير أما كان ير أما ولا يججوبها يا إنها ترى سوق مسوق الكثير معناها سوق مسوق الكثير وإن أوجشها هي واحد البا أوجشها هاي رفعتك إلى ذا قفك هل أبورك أنا هل كمية وين اللي سكر عسين يدوق وحواي إنه ريسك تاكر يح ريسك تاكر وعكا ولا إنه حليستها ولي بحليست أردن معه حليست إنسك قاضنا معه نفس الدين ما عليه آية القرآن عليه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مال العكس هذا نفس هذا مال أهل إنسك قليل سؤالان هذا حليست قاضنا هنا نشقة صور شقة صار بدأ سامرايا معها ريسك تاكر لما ده كرب بدأ أوجد من الشيء كمرة قفكي صح ويقول عادين كمرت يروبو تجاي وصور شقة لكن الريسك تاكر مو عازة وهلق نمو وحال ربا ريسك أو كالكوليتد الحسابي أو isku dheeli tiran la rabaa aad tirahdid maxaa iga soo gali kara marka fiirisid waxa aad helaysid iyo waxa ka baxaya haday ka badan yihiin waxa helaysid waxa la rabaa inaad tirahdid yes waa gali kara meesha laakiin haday ama 50-50 ama waxa ka khasaarada ka soo galaysa haday ka badan tahay waxaan aad sheegaysid boqolkiiba 20 ama 30 ama 40 aad helaysid waxa laga yaabaa in iska daysida ku fiican soo marka qofku waa inuu geesinimo عزيمة قوان يريسكي قاس قادن كره هاليس قاس قادن كره